daawadayaal soo dhawaada muuqaal qurux badan oo ku koobsanaya magaalooyin badan oo hoos yimaada gobolka Daadmareed magaalo madaxdiisa Oodweyne. Hadda waxaanu ka ambabaxnay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco annagoo u sii jeedna dhinaca iyo gobolka Daadmareed. Waxaanu sii mari doonaa tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin magaalada Ceelsame oo loo aqoon og yahay Ceelxume, Ceel Bilcinle iyo magaalo madaxda gobolka Daadmareed oo Oodweyne. Halkaas aanu indhayn doono mashaariicaha horumarineed ee biyuhu ay kowga ka yihiin ee laga fuliyay gobolka Daadmareed. Sidoo kale waxaanu sii mari doonaa deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer oo ay ka mid yihiin deegaanada Wadhan iyo Wisil oo laga hirgeliyay iyaguna mashaariic biyo ah oo ah biyo xidheenno si kor loogu soo qaado biyaha dooxa isla markaana kor ay ugu soo kacaan biyaha ceelashu ee dadku ka cabayaan. Annagoo ugu dambeyn ku sii wajahan gobolka Daadmareed magaalo madaxdiisa Oodweyne oo caawa u hoyan doona halkaan aroorta ka ambabixi doona isla markaana tegi doona deegaano badan oo ay ka mid yihiin deegaanada Beerato, Mureec, Xaaxi, Dhooboweyne, Godwaraabe, Qaloocato iyo deegaano badan oo halkan aanan ku soo koobi karin oo iyagana lagu hirgeliyay mashaariic biyo ah oo u badan biyo xidheenno saan dhaam ah iyo dhaamam waaweyn oo laga hirgeliyay. Bal daawasho wanaagsan. Dhaamkan hadda idiin muuqda waa dhaamka weyn ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Jamhuuriyadda Somaliland ay ka hirgelisay magaalo madaxda gobolka Daadmareed ee Oodweyne. Dhaamkan ayaa wax ka taray baahidii biyaha ee dadka deegaanku ay qabeen isagoo raxmaadkii sanadkii hore galay ee Eebbe weli haya isla markaana aan in yarna dhimin xitaa biyihii. Dhaamkan ayaa loo dhammaystiray dhammaan waxyaabihii looga baahnaa sida geometry plastic sheetkii oo hoosta la dhigay bacdii iyada oo silig ama fanis lagu wareejiyay si xoolaha iyo dadku aanay u soo gelin isla markaana aanay ugu waxyeeloobin aanay u wasakhayn biyaha. Suuliyadii ayaa dibadda looga sameeyay iyaguna faniska dibadda ah ayaa looga sameeyay si kor loogu qaado nadaafadda dhaamka. Sidoo kale waxaa loo sameeyay taangi kor loo qaaday oo loogu talagalay inuu biyaha ku tuuro magaalada si ay magaaladu uga cabto. Waxaa dhaamkan oo kale loo sameeyay dhoobo reeb weyn oo loogu talagalay inaan dhaamka aanay dhoobadii daadka la socotay aanay soo gelin.
Halkani waa deegaanka Ceelbilcinle. Deegaanka Ceelbilcinle waxay ka cabaan ceel gacmeedyo ku yaala dooxa dhexdiisa. Si biyaha kor loogu soo qaado ayaa waxaa loo sameeyey biyo xidheenno dooxa dhexdiisa ku yaala oo u qabanaya ciidda si ay biyaha dhulka korkiisa maraya ay u liqdo ciiddu, isla markaana ay kor ugu soo qaado biyihii ceelasha ay dadka deegaanku ka cabayeen. Haddana waa subax kale oo qurux badan. Wuxuu waagu noogu baryay magaala madaxda gobolka Daadmareed ee Oodweyne, annagoo uga sii jarmaadi doona deegaanka Godwaraabe oo ku yaala galbeedka fog ee gobolka Daadmareed. Halkaas oo laga hirgeliyey mashaariico ay iyaguna isugu jira dhaamam waaweyn oo laga qoday deegaankaasi. Dhaamka laga qodayo deegaankan Godwaraabe ayaa gebageba ku dhow, iyadoo ay xaabxaabkii ugu dambeeyey u harsan yihiin sida bacdii, taangigii biyaha isaguna socda iyo xaal yar oo kale. Dadka deegaanka ayaa aad iyo aad uga mahadnaqay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha dhaamkan weyn ay u keeneen iyo baahida ay biyaha u qabeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad iska leh. Haddaan nahay magaalada tuulada Gowaamo, guddoomiyaheedii baan ahay, odayaashii waan ku dhannahay. waxaanu in badan dabagal iyo baahi ugu jirnay biyaha sidaan u heli lahayn biyo. biyahaasoo nooga iman jiray dhul aad u durugsan oo inta Burca u sokayso ilaa Oodweyne Cadaadley. booyadaha noo keenaana waxay noogu keeni jireen biyaha 1,500,000 iyadoo 1,500,000 ay noogu keenayaan baanaan haddana ka qablayn. waxa weeye weelka magaalada ay leedayna waa weel aad u tiro yar oo burbura oo shaandhooyin ah. biyaha meel walba waanu marnay. biyaha ciddii noogu soo hawshootay, ciddii ay noo soo dhex martay, ciddii noo keentayba waan u mahadnaqaynaa, mahad baan u celinaynaa. ilaahay baan u mahadda iskale markuu koobaad. waxa weeye wasaaradda biyaha, horumarinta biyaha, shaqaalaha iyo wasiir Cali Mareexaan intaba ciddii noo soo dhex martay waan mahad celinaynaa. waa biyaha wax laga yaabaa baahi fara badan oo qabnay inaanu kaga raysano. balligaa naloo keenay. deegaanku waa deegaan ballaadhan, waa deegaan aad u fara badan. biyaha balligaa haddii ilaahay biyo noo geliyo waa kaga raysannaa baahidina haysatay. Indhendhen iyo xogoreysi dadka deegaankana dhex maray waxaanu uga boqolay dhinaca iyo deegaanka Qalloocato, annagoo sii marnay dhaam weyn oo wasaaraddu iyaduna ka hagaajisay deegaanka Qalloocato ee gobolka Daadmareed. safarka maalintan oo aad iyo aad noogu dheeraa ayaa waxaanu soo marnay deegaanada Xaaxi, kadib annagoo uga sii boqolnay deegaanka Dhoobaweyne oo iyaduna dhaam weyn wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ay ka hirgelinayso, isla markaana markaas la bilaabay oo dhaamka ay gacanta lagu hayo. intaa kadib waxaanu dib ugu carownay magaalada Xaaxi, kadib waxaanu dib ugu noqonay magaalada Mureec oo iyadana dhaam aad u weyn ay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ka wado, isla markaana gebageba ku dhow oo isaga aanay waxba u hadhin.
odayaal muuqaalkii quruxda badnaa ee ka soo duubayay xarunta gobolka Daadmareer magaalo madaxdiisa iyo deegaano badan oo hoos yimaada intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa. Subscribe, like iyo commentiga hanaga ilaawina. Aad iyo aad baad mahadsan.